Soo dhawaada Somali Scholars University. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato channelkayga, subscribe saar, videogana like saar. Maanta waxaan qaadanaynaa casharkii afaraad ee Business Administration. Casharkeennii afaraad ee Business Administration waxaan uga hadlaynaa maamulka maaliyadda, Financial Management. Business Administration heerka koowaad, hordhac, Introduction. Maamulka maaliyadda, Financial Management, waa mid ka mid ah waaxaha ugu muhiimsan maamulka ganacsiga. Waxay ka hadlaysaa sida lacagtu u maamulayso si shirkadu u gaarto yoolasheeda. Fikradaha asaasiga maxay tahay maamulka maaliyadda? Maamulka maaliyadda waxaa loogu jeedaa habka lagu qorsheynayo, lagu horumarinayaa, lana xukumo kheyraadka maaliyadeed ee shirkad ama hay-ad. Ujeedooyinka maamulka maaliyadda: in la kordhiyo qiimaha shirkadda, maximize firm value, in la xushmeeyo mashruuca maaliyadeed, in la bixiyo kharashyada wakhtigoodii, in la sameeyo qorshaha hore ee lacagta, in la nabadgeliyo hantida shirkadda. Noocyada maaliyadda: maaliyadda gudaha, internal finance, waxaa loola jeedaa lacagta timaada gudaha shirkadda lafteed, sida faa'iidada la keydiyey, retained earnings, alaabta la iibiyey, hantida la iibiyey. Maaliyadda dibadda, external finance, business administration, maamulka maaliyadda, lacagta laga helaa meel dibadda ah, amaahda bangiga, bank loans, sahmiga, shares / equity. Ujeedyada kale ee maalgashiga: 4 qaacidooyin oo qaacidooyinka maaliyadda ah. Formulas. Tan koowaad, faa'iidada guud, gross profit, faa'iidada guud, dakhliga guud, qaadashada alaabta. Tusaale, dakhliga guud $50,000, dakhliga guud markaan ka dhigno $50,000, qaadashada $30,000. Faa'iidada guud $50,000 minus $30,000. Faa'iidada guud waxay noqonaysaa $20,000. Faa'iidada nadiifka ah, net profit, faa'iidada nadiif, faa'iidada guud, kharashyada yar, kharashyada kale, heerka dakhliga, even point PEP ee laga soo gaabiyey, kharashyada joogtada ah, loo qaybiyey qiimaha, laga jaray kharashka midba. ROI waxaa laga soo gaabiyey return on investment. ROI waxay la mid tahay faa'iidada laga jaray maalgashiga, loo qaybiyey maalgashiga, lagu dhuftay 100%. Qaybta ee su'aalaha gaagaaban, short answer, ku jawaab su'aalaha hoose si gaaban oo sax ah. Su'aasha koowaad, maxay tahay maamulka maaliyadda? Si gaaban u sharax. Su'aasha labaad, kala sooc maaliyadda gudaha iyo maaliyadda dibadda, iyadana si gaaban u sharax. Su'aasha saddexaad, maxay tahay faa'iidada guud? Qaacidada ku qor. Qaacido gaaban. Shirkad haysata dakhli 80,000 iyo kharash 55,000. Xisaab faa'iidada nadiifka ah. Faa'iidada nadiifka ayaad ka xisaabinaysaa 80,000 shirkadda haysataa, dakhli ahaan u haysataa, iyo kharashka 55,000. Xisaabi faa'iidada nadiifka ah. Maxay tahay break even point? Tusaale ka bixi, sharax. Kuwaas su'aalooyin gaagaaban bay ahaayeen. Business Administration, casharka afraad, maamulka maaliyadda, qaybta B, su'aalaha dhaadheer. Essay questions, ku jawaab 2 su'aalood oo hoos ah si faahfaahsan. Su'aasha koowaad, sharax ujeedooyinka maamulka maaliyadda ee shirkad, intee badan ayay muhiim u yihiin. 2, xisaabi ROI. Haddii maalgashiga uu yahay $10,000, faa'iidadana ay tahay $13,500. Nambar 3, shirkad gaari baad leedahay 200,000, hantidana waxaa ku jira 150,000 oo amaah ah. Waxay tahay xaaladda maaliyadeed wanaagsan. Sharax. Qaybta C, xisaabinta toddobaadka. Su'aal gaar ah. Case study, shirkad ganacsiga oo soo saarta wax manufacturing company, waxayna leedahay xogtan: dakhliga 120,000, kharashka alaabta 70,000, kharashka shaqaalaha 20,000, kharashka kale 10,000. Xisaabi faa'iidada guud. Xisaabi faa'iidada nadiifka ah. Wanaagsan. Maxay tahay natiijada wanaagsan? Sharax. 6 xusuus qor oo muhiim ah.
ereyga Ingiriisiga, micnaha Soomaaliga, muhiimadda. Gross profit, faa'iidada guud, muhiim weeye. Net profit, faa'iidada nadiifka ah, muhiim bay aad u tahay iyadana. Break even point, heerka dakhliga, taasina waa tixgelin weeye. ROI, dib u celinta maalgashiga, aad bay muhiim u tahay iyadana. Revenue, dakhliga asaasiga. Expense/cost, qarashka asaasiga. casharkeeni afraad halkan ayuu inooga egyahay. Inoo mar kale iyo cashar kale oo ka xiiso badan.